intii uu shirka caalamiga ah socday Gautam wuxuu kaamirada si joogto ah ugala socday xaaladda Yashoda balse daqiiqad uu ka jeestay Yashoda fursad ayay heshay oo way baxsatay waxay gashay tunnel god dhulka hoostiisa ah oo qarsoonaa kaas oo geeyay hawdka jungle u dhawaa xarunta waxay ku fakartay inay badbaaday laakiin waxaa soo weeraray ay bahal ah oo silsilad ku xirnaa nasiib wanaag silsiladii ayaa geed ku xanibtay taas oo Yashoda siisay fursad ay kaga cararto iyadoo orod ku aaday dhanka buurta markii ay gaartay meel sare oo buur ah waxay istiri waad guulaysatay balse waxaa si lama filaan ah uga hor yimid Gautam oo halkaas ku sugayay Gautam ayaa si qabow u yiri ilmaha calooshaada ku jira waxaa iibsaday nin reer Brazil ah haddii aad ila shaqayso waxaan ku ballan qaadayaa dhimasho aan xanuun lahayn aan ku xasuusiyo inaad muuqaalka like ii saarto ciwaankana follow dheh aan ku labano filimka ama haddii aad rabto halkan iska tuur oo naftaada dil hadalkaas wuxuu ahaa mid naxariis darro ah oo muujinaya inuusan dan ka lahayn nolosheeda isla markiiba wuu soo qabtay wuxuuna dib ugu celiyay xaruntii isagoo ku yiri maalintii aad zone 2 gashay ayaan ka shakiyay laakiin weli waan la yaabanahay sida aad halkan ku soo gaartay Yashoda hadda waxay ku jirtaa gacanta cadowgeeda maxaa xigi doona ma badbaadi doontaa la soco qaybta xigta